Ilaahay noolihiisa dhibaatooyinka uma qasdo ee cibro qaadasho iyo xigmad uu ina tusay weeyaan. Noolaha waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa iyagoo da'yar garta dhibaatooyinka uu marayo qofka bini'aadanka. Wiilkan yara inoo muuqda wuxuu la yaabay nolosha uu ku sugan yahay aabbahan waddada dhinaceeda fadhiya, kaasoo awoodi waayay inuu helo dhar uu dhaxanta isaga celiyo. Wiilkan yar waa uu dareemay xanuunka uu aabbahaas wajahayo. Waxa uu soo bixiyay lacag uu muddo kaydinayay. Waxa uuna go'aansaday inuu kisti yarayd uu haystay ugu deeqo aabbahaas dhibaataysan. Waxaa halkan inooga cad in Ilaahay uu qofka isagoo da'yar xitaa siiyo garasho ah inuu garab istaago qofka kale dhibaataysan. Kadib wiilkii waxa uu qaatay baaskiil isagoo lacagtii sida, wuxuuna u jihaystay dhanka suuqa. Bal u fiirsa markii uu yimid suuqa, waxa uu galay dukaan lagu iibiyo dharka ragga. Waxa uuna u dooqay aabbihii shaar uu islahaa waa uu anfici doonaa. Lacagtii ayuu bixiyey, waa uuna u soo qaaday. Wuxuu og yahay wiilkan yar xanuunka haya aabbaha, wuuna u degdegayaa si uu dhaqsi ugu geeyo shaarka. Waxaa hubaala in wiilkan yar uu yahay gargaar iyo naxariis uu Ilaahay u soo diray aabbahan masaakiinka ah. Aabbihii oo weli dhaxanta haysa ayuu wiilkan u soo bixiyey shaarka, gacanta ayuuna ka saaray. Aabbihiina aad ayuu u farxay, wuuna u mahadceliyey. Waxaa xilligaas waddada marayay wiilkan yar ee garashada wanaagsan aabbihiis oo gaari wata. Markii koowaad waa uu la yaabo wiilkiisa waxa uu halkan ka samaynayo. Kadib ayuu fahmay inuu caawinayo aabbahan dhibaataysan. Wuxuu ogaaday in wiilkiisa uu soo celiyay farxaddii aabbahan, wuxuuna xaqiiqsaday inuu soo siiyey tarbiyo wanaagsan. Isaga laftiisa ayaa u riyaaqay oo dareen isla celin waayay, wuxuuna dhahay kaalay wiilkayga hab isii, si uu ugu dhiirigeliyo hawshan wanaagsan ee uu qabtay. Waa walaalkiin Axmed oo idin leh carruurta ha loo sheego inay masaakiinta caawiyaan. Like saar page-ka, siina share garee muuqaalkan.